أنت الذي آويتني وحبوتني وهديتني من حيرة الخذلان وزرعتني بين القلوب مودة والعطف منك برحمة وحنان ونشرتني في العالمين محاسنا وسترت عن أبصاري معصياني وجعلت ذكري في البرية شائعا حتى جعلت جميعهم إخواني. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودرسيني صدحاد كمدها دروستين امتحاناهيد نوغو مقعد الرأي وحانو مسلمكو موغنان كرين ما لا يسع المسلم جهله. waxaanu qofka muslimka ay jaahil ka noqon karin waajib ay ku tahay inuu barto oo ka barto kitaabka Ilaahay iyo xadiista nabigeena kaleey salaatu wasalaam. hadaanu isagu aqoon hore u lahayna uu daba fadhiisto uu weydiiyo dadka culimada sida Rabbi subhanahu wa ta'ala uu yiri fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. aqoonta cidda la weydiiya hadaydan idinku aqoon u lahayn arrinka idin la soo gudboonaaday. waxaaynu ku dhex jirno darsigeena hore aynu kaga hadlaynay waxyaabaha qofka muslimka barashadu ay waajibka ku tahay iyo rumayntooduba ee aanu mooganaan karin ay kamid tahay arkaanul iimaan as-sitta, tiirarka iimaanka ee lixda ah. tiirarka iimaanka ee lixda waxa u horeeya al-iimaanu billah, ilaahay qofku inuu rumeeyo. waxaana aynu sheegnay rumaynta ilaahay subhanahu wa ta'ala la rumaynayo lafteedu cilmi iyo aqoon inay u baahan tahay. ay qaybo kala duwan ayay ka kooban tahay, qayb walbana qofka ay waajib ku tahay inuu barto isla markaana inuu rumeeyo. al-iimaanu billahi waxa soo galaya baynu niri al-iimaanu biwujuudillah, ilaahay jiritaankiisa in la rumeeyo. al-iimaanu birububiyatillah, ilaahay rabbinimadiisa in la rumeeyo oo macnaheedu yahay in la rumeeyo ilaahay inuu yahay kelidii ka wax abuuray jirsiya, kelidii caalamkan inuu leeyahay oo cid la wadaagtaani jirin, kelidii ilaahay caalamkan inuu maamulo oo qadarkiisa uu ku maamulo, sharcigiisa in lagu maamulo ilaahay u soo dejiyana waajib ay tahay. al-iimaanu biuluhiyatillah ayaa al-iimaanu billahi kamida oo qofku inuu rumeeyo ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu kelidii cibaado xaq u leeyahay, macbuudka xaqi kelidii inuu yahay. cid kastoo la caabudo magaca la doonaya baa loo baxshee cibaadada xaq daraya baadil in lagu siiyay. waxa kale oo soo galaya banu al-iimaanu billah الإيمان بأسماء الله الحسنى وصفات الله العليا، إنه أدونك الرمايو إلهي مقعدي وناكسن إلهي إنه ليه القرآن كأنه بشاقي. أما فرين نبي عليه الصلاة والسلام ينصف فري إنه كوغاني وإنه كبرني. إلهي سبحانه وتعالى صفات كيسية الماميس قرآن كي حديث كالنبي صحيح حاكو صاروري يجنا وين الرمين يدو أمر والبطاسي إلى صحته عقيدة قرآن oo aynu aaminsanahay sifaadka ilaahay kuwa makhluuqaadka marnaba inaan la mid ahayn. allah sida uu uga duwan yahay khalqiga, sifaadkiisuna kuwa khalqiga inay uga duwan yihiin. inagoon sifaadka ilaahay qaab iyo kayfiyad inagoo aanu sheegahayn, waayo arrinkaasi waa arrin laynaga qariyey. arrinka laynaga qariyeyna ra'yi iyo caqli inaynu ku baadhno maaha. al-iimaanu bilghayb inta laynooga sheegay baa wixii naga maqan rumayntiisa aynu kaga gaabsanaynaa. wixii aan laynoo sheeginna caqligeena iyo ra'yigeena gelin mayno, sidaasoo kale ka hadli mayno. afkeennana waa ka haysanaynaa, ra'yigeennana waa ka xijaabaynaa si aynaan u lumin oo aynaan u lugoyn. waxaynu halkaa ka sii wadaynaa arkaanul iimaan ama tiirarka iimaanka. waxaa ka mid ah al-iimaanu bilmalaa'ika, qofku inuu rumeeyo malaa'igta. malaa'igtu waa khalqiga ilaahay ka mid ah. wuxuu inoo sheegay rasuulkeennii maxamed calayhi salaatu wasalaam inuu ilaahay ka abuuray nuur in laga abuuray. malaa'igta sifaadka guud ee ay wadaagaan waxaa ka mid ah ee ay tahay qofku inuu rumeeyo annahum laa yacsuuna allaha maa amarahum wayafcaluuna maa yu'maruun. waa khalqiga ilaahay ka mid ah oo ilaahay nuur uu ka sameeyey, way joogaan oo way jiraan. asal ahaan samada ayay degan yihiin, dhulkana waa u soo daadegaan sida qur'aanka iyo xadiiska nebigaba calayhi salaatu wasalaam lagu sheegay. ilaahay ma caasiyaan, amarkiisa ayay qaataan, wuxuu ilaahay u diidayna xaggiisa uma dhaqaaqaan.
waqtigoodoo dhan waxay ku jiraan cibaado ilaahay subxana watacaala ay caabudayaan amaradiisana ay fulinayaan si guud qofku intaa inuu u rumeeyaa waajib bay ku tahay qofka intaa aan garanahayn amaba se aan rumaysnayn qofkaasi noqon maayo qof mu'mina noqon maayo waayo tiirarkii iimaanka ka mid ah ayaa qofkaasi ka maqan intaa wixii loo sii dhaafo qofka muslimka ahi wixii uu ka ogaado cilmiga malaa'igta ku saabsan ee qur'aanka lagu sheegay ama xadiidka nebiga calayhi salaatu wasalaam waa inuu rumeeyo sida magacyada cidda magacyadooda laynoo sheegay malaa'igta ka mida sifaadkooda shaqooyinka ay qabtaan iyo wixii kale lagu faahfaahiyey qur'aanka iyo xadiidka nebiga calayhi salaatu wasalaam cilmigiisa iyo aqoontiisu marka ay soo gaadho ayaa qofka muslimka waajib ay ku tahay inuu rumeeyo arkaanta iimaanka waxaa ka mida oo rukunka saddexaada alimaanu birusul macnihiisu yahay qofku si go-an waa inuu qalbigiisa ugu gunto u aamino inuu ilaahay soo diray rag basharka ka mid ahaa oo xor ahaa ee addooma aan ahayn oo ilaahay waxyi uu ku soo dejiyey waxyigoo macnihiisu yahay fariimo ilaahay malaa'igta u soo faray malaku jibriil oo soo gaadhay raggaasi si ay iyaguna dadka ay u gaadhsiiyaan kelimatu rag waxaan u isticmaalaya ilahay baa qur-aan ku sheegay wamaa arsalnaa min qablika ilaa rijaala nuuxi ilayhim ilahay wuxu uhi nebi maxamed isagoo la hadlaya adiga horta maanaan dirin oo maanaan waxyoon rag mooyaane raggaasoo waxyi uu ku soo degay markaa ruux dumari weli nebi may noqon rasuulna may noqon mana noqonayso oo dee nebi maxamed ba calayh isalaatu wasalaam rususha u dambeeyey oo lagu khatimay waa inuu rumeeyo markaa qofka muslimka ahi rusushaas nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo qura hadduu idhaahdo waan rumeeyey rususha kalena anigu ma ogoliyo waan beeniyey qofkaasi qof gaala buu noqonaya waxaa waajiba aliimaanu bijamiici rusul rusushoo dhan ilahay inuu rumeeyo kuwa laynoo sheegay iyo kuwa aan laynoo sheeginba oo ilahay qur-aanka wuxuu ku sheegay rusushu inay laba u qeybsamaan minhum man qasasnaa calayka wa minhum man lam naqsus calayka kuwa aanu kaaga qisoonno aanu kaaga waranay iyo kuwa aanan kaaga waramin labadaba rusushu way leeyihiin si guud qofku inta aynu sheegnay waa inuu u rumeeyo intaa qofku haddaanu rumayn noqon maayo qof muumina intaa dabadeed cilmiga rususha ku saabsan ee qur'aanka iyo xadiidka nebiga calayhi salaatu wasalaam lagu xusay marba inta qofku uu ka bartay ee soo gaadha inuu rumeeya waajib ku ah sida magacyada rususha kutubta lagu soo dejiyey magacyaday lahaayeen aqwaamta loo diray rususha tiradooda nebigeenu calayhi salaatu wasalaam uu sheegay sifaadkooda iyo tilmaamahooda wixii ka mid ah ee laynoo sheegay alimaanu birusul waxaa ka mida oo weliba waajiba inuu qofku ogaado rususha inuu u dembeeyey nebigeeni moxamed calayhi salaatu wasalaam sida ilaahay qur-aanka uu ku xusay maa kaana muxamadu aba axadi min rijaalikum walaakin rasuula اllahi wakhatama الnabiyiin rasuulkii ilaahay buu ahaa nebiyadana kii lagu khatimay buu ahaa oo nebi iyo rasuul midna kama dambeeya nebi maxamed calayh salaatu wasalaam qof kasta oo nebi maxamed dabadiyey rasuulnimo ama nebinimo sheegtana beenaale fitni wala ah oo ay tahay in laga digtoonaado la iska ilaaliyo inuu yahay ayuu inoo sheegay nebigeeni moxamed calayhi afdal الsalaati waالtasliim arkaan اliimaan waxaa ka mid ah oo rukunka waxa weeyaan afraad alimaanu biاlkutub qofku waa inuu rumeeyo ilaahay subxaana watacaala kutub yana hadalkiisa ka mid ah inuu u soo dhiibay malaku jibriil oo ilaahay uu soo gaadhsiiyey isagoo malaku jibriil u soo mariyey rusushaasi aynu sheegnay oo kitaabka la sheegayaa qur'aanku waa kitaab kutub kalena qur-aanka waa ka horeeyeen qofku waa inuu rumeeyo kutubtaasi inay xagga ilaahay ka timi oo waxyi ay tahay wax allaale iyo waxa dhexdeeda ku sheegana inuu xaq ahaa oo aanu baadil ahayn kutubtaasi inay tahay hadalkii ilaahay subxana watacaala oo malaku jibriil ilaahay uu ka maqlay kadibna malaku jibriil fariintii oo sideeda u ilaashan uu soo gaadhsiiyey rasuulkii ilaahay subxana watacaala ugu soo dhiibay qofku waa inuu rumeeyo kutubtaa kitaabka u dembeeyey inuu yahay alqur'aan اlkariim sida ilaahay uu ku sifeeyey wamuhayminan calayh kitaabka alqur'aan اlkariim waa kitaab ilahay uu ku nasakhay oo meesha uu kaga saaray kutubtii ka horeysay oo dhan oo ma jiro kitaab aan qur'aanka ahayn oo hadda lagu camal fali karo kutub ilaahay uu soo dejiyo mar jirto shaqeynaysa inay ahayd waa rumaynayna taasi waa waajib
laakiin ilaahay laguma caabudi karo laguma camal fali karo waayo allihii markii hore soo dejiyey baa bedelo nasakhay oo qur-aanka kariimka ku bedelay dadkoo dhanna ku waajibiyey qur-aanka inay raacaan ay rumeeyaan oo isaga ilaahay ay ku caabudaan noloshoodana ay ku saleeyaan oo ay ku camal falaan maanta qofka idhaahdo waxaan haystaa kitaab aan qur-aanka ahayn sida towraad ama injiil ama zabuur ama suxufu muusa wa ibraahim qofkaasi laga yeeli maayo ilaahay baa yidhi waman yabtagi gayra alislaami diina falan yuqbala minhu wafi laakhirati min alkhaasiriin qofka islaamka midaan ahayn diin ka dhigta laga aqbali maayo aakhirana kuwa khasaaray ayuu qofkaasi uu ka mid noqonayaa rususha kutubta lagu soo dejiyey ay waajib tahay in la rumeeyo kuwa magacooda laynoo sheegay qofku waa inuu rumeeyo wixii kale laynooga sheegay qur-aanka iyo xadiidka nebiga lagu sheegay marka cilmigiisu uu soo gaadho qofka muslimkaahi waa inuu rumeeyo hadduu rumeyn waayo de cilmigiisu uu soo gaadhayna qofkaasi noqon maayo qof muumina oo islaamnimadiisu ay tahay islaamnimo jirto tiirka shanaad ee ka mida tiirarka iimaanku waa aliimaanu bilyowmi alaakhir waa rumaynta la rumeeyo maalinka maalmaha u dambeeya waayo habeen ka dambeeya ma jiro yowm alaakhir oo maalinka qiyaamuhu u dhacayo maalmaha adduunyadana waa maalinta u dambeysa sababtaasaa yowm alaakhir loogu bixiyey yowm alqiyaamana waa la idhaahdaa waa maalin dadku ay qubuurahooda ka soo bixi doonaan dhammaantoodna allah ay hor istaagi doonaan yowma yaquumu nnaasu lirabbi alcaalamiin aliimaanu bilyowmi alaakhir rumaynta la rumeeyo maalinka aakhiro waxaa soo gelaya rumaynta la rumeeyo laga bilaabo geerida ilaa janno iyo naar iyo waxaa janno iyo naar dhexooda yaalla laga gaadhayo waa shay aad iyo aada u ballaadhan maalin qiyaamo la idhahdaa inuu jiro oo dadku qubuurahooda ay ka soo bixi doonaan oo ilaahay la horgeyn doono oo dadka la xisaabin doono la abaal marin doono qofku intaa inuu rumeeyaa waajib bay ku tahy waana waajib qof walba saaran wixii kale markaa faahfaahin ku saabsan qofka marka cilmigeedu uu soo gaadho ayaa rumayntiisu ay waajib ku noqonaysaa aanu markaa qofku aqoon u lahayn asaasiyaadka iyo usuusha maalinkaasi aan ka mid ahayn jahli uu kaga sugan yahay taa iyada lagu ciqaabi maayo waayo waxaa tafaasiisha ah dadka oo dhami ma wada ogaan karaan oo culimada mooyaane dadka caamatu naas aqoon ma wada yeelan karaan rukunka lixaad ee ka mid a arkaan اliimaan waa aliimaanu biاlqadaaءi wاlqadar oo qofku inuu rumeeyo in ilaahay wax walba uu sii ogaa alimaanu biاlqadar macnaheed waa maxay waa si go-an qofku inuu rumeeyo qalbigiisa ugu gunto wax walba ilaahay inuu sii ogaa waxa ilaahay uu mooganaa haba yaraatee inaanu jirin ilaahay subxaana watacaala wax walow ogaa inuu ku qoray fi lawxi اlmaxfuud sida laynoogu sheegay qur-aanka iyo xadiidka nebigaba ilaahay subxaana watacaala wuxuu doono mooyaane wax kale caalamka inaanay ka dhacahayn ilaahay inuu yahay kelidii ka khaaliqa ee abuuray makhluuqaadka iyo wax allaale waxa makhluuqaadka ka soo fula ee qowle ama ficil ah afarta arrimood rumayntooda la yidhahda alimaanu bilqadar rumaynta la rumeeyo cilmiga ilaahay subxana watacaala ee horeeyey ilaahay subxaana watacaala qoraalkiisa wax walba gaadhe koobsaday wax walba ilaahay lawxulmaxfuudka uu ku qoray qalinka uu amray inuu ku qoro rumaynta la rumeeyo doonista ilaahay in doonista ilaahay una ay shaqaynayso ilahay wuxuu doonaa inuu dhacayo iyo rumaynta la rumeeyo alkhalq oo ah jirsiinta ilaahay uu jirsiiyey makhluuqaadkan iyo ficilkoodaba wax allaale wixii ay sameeyaan ilahay baa abuuray waayo awoodda ay ku samaynayaan iyo doonista ay ku dooranayaan labadaba ilaahay baa subxana watacaala makhluuqaadka ku abuuray afarta arrimood rumayntooda la dhaha alimaanu bilqadar qofka aan rumayn maaha qof rumeeyey qadarkii tiirka ayaa ka maqan waxaanu noqonayaa qofkaasi qof aan muslim ahayn iimaankiisuna aanu sugnayn ilahay baynu subxana watacaala weydiisanaynaa inuu iimaanka inoo sugo inuuna ziyaadiyo allahna subxaana watacaala kuwa iimaan kula kulma inuu naga dhigo wallahu aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu وتجنب اللفظين إن كليهما ومقال جهم عندنا سيان يا أيها السني خذ بوصيتي واخصص بذلك جملة الإخوان واقبل وصية مشفق متودد واسمع بفهم حاضر يقظان كن في أمورك كلها متوسطا عدلا بلا نقص ولا رجحان واعلم بأن الله رب واحد
متنزه عن ثالث أو ثاني، الأول المبدي بغير بداية، والآخر المفني وليس بفاني، وكلامه صفة له وجلاله منه بلا أمد ولا حدثان.